الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا كبيرا. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. والله ليال وحاب خطبتين أي كساب سنتهي شيء الله يقان لذة العبادة نعانك أما ردنك أي عبادة الله وعشر نغير أما أي نورن كرنو درين كاسي إنغو مبضنا أما ويريه ذاتك قار كودنا وكمريه سيدي نوكسون هاي عبادة وعنا الروح له أيامه رمضان تيوى إنو معاني عمل بدنو يسوقو كان بيري درادين وعبادة ذاتك درين بيو سميني سوا تي لغو سو حومي صلاة الليل كي التراويح ذاتك وادو حيسينيين وادرنا باكينا يقفكم لكن هذه الشهر مركا ذاتك بشير رمضان أو دماتي اسبدل بايمين waxaynu baraarujin lahayn xiisada ay 10 ka waynu u baahanahay inaynu balaarinta isku baraarujino sharcigu sidoo qiimeeyay cibaadadu dhan ma leedahay maxaa lagu helaa maxaa lagu waayaa waxyaabaha lagu helo waxa kamid ah sunnaha oo la badiyo cibaado waliba sunna ay leedahay la socdee ha fudaysan salaada sunna la socda rawaatib la ilaa soomka sunna la socda inoo yeelo ilaa 10 qaybooda oo shawaalku u soo horeeyo sadaqadu sunna ay leedahay sakada la socota xajku sunnu leeyahay arkaan islaamka iyo cibaadooyinka mid waliba sunna kullamaana kulli faaqan bay leedahay ilaahay ba xadiis al-qudsi waxa uu ku yiri wama yazaalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba adoonkaygu markastuu ku dadaalo inuu sunnayaasha badiyo wiigu soo dhawaanaya anaa jeclaanayo ilaalinaya waxyaabaha aynu ku heli karayno waxa kamida at-ta'ammulu fi siyar as-salihin dadka wanaagsan iyo dhaqankooda inaynu taariikhdoodana akhrino cidaynu wanaag iyo khayr ku tuhmaynana ka ag dhawaano inuu ku dayano waxyaabaha cibaadada dareen iyo macaani noogu samayn kara weeye جعفر بن سليمان إمام كاسي وحا وليه كنت إذا وجدت في قلبي قسوة غدوت فنظرت إلى وجه محمد بن واسع كأنه وجه ثقلة مركا نفتا إذا أما قلبي جيغا وحكي رجران وايو يا أيامها عبادة أي رد النبي ويدو وحانو تجي عابدك وينا محمد بن واسع لورنج وتجي سانفير سنشري وأنا يجي شري وأنا دوغان شري مركا وحا أنا أركي شري بقول وتجي سونو أوجي هاي هو يقبل أنت وتجي هذا sidoo dhulka ugu ruquusay ugu camcamanayo sujuuda u badinayo sidoo kale waxa uu leeyahay Abdullah ibn Mubarak taabiciga jaliilka rahimahullah Fudayl ibn Ayyad markan an u taga buureen eego juddida li al-huzn wa maqadtu nafsi marka fikirka igu bilaabmi jiray naftaydana waan karaahaysan jiro inay gaabis tahaydaan dareemi jiray idan markaa qof wanaagsan oo ku dayataa ama aad la noolaataa waxa ay kugu dhiiri galin kartaa wuxuu wado iyo dareenkiisa sida qofka xumiba saameyn uu leeyahay cibaadadu inay inoo macaanaato waxyaabaha inoo keeni kara waxa kamid ah quraanka kariimka aynu akhrino inagoo macnihiisa dhadhaminayna iyo cajaa'ibta uu leeyahay jannu ka waramaya naar buu ka waramaya ummada la halaagay buu ka waramaya waxaynu dhageysanaynaa ilaahay oo dhaadanayo hadlaya أنا سدايل وأنا سدايل أنا سايل دونا كوحة صورنا مركا دقيستي قلبي جاي مسكح هذا كوروران وحكينا يعني درين كاجي وحسب الدلالة وعبادة ذي يكون رنتو مركا العيش مع القرآن قرآن كريم كاين لنا ولا نينا فضي سن وإن كهاجرين قرآن وحكم إذا وحيابها الله وهلنا كعبادة الخلوة بالله سبحانه إن هذا سكوت يذب الإله إن هذا وهشته إن الناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا وقت جيبوا إلى هاي كلا قاضي مركز أوحد المعنى هذينكو إنه يهاي مد الجناشي سنبذين مركز العبادة سنيو قرآن كهذا خريسي هذا الكاغا نصفي عن هذول دقي سنيس مركز وينو ترى وقت إلى هاي أدقارو سيسو إلى هاي أدلفق ضوء آد وهشتو آد بريضو قلبي جاga soo jeediso bowbowdi iyo balaadi adduunyada
iyo dadkeedii iyo saxmadeedii aad ka soo dhex baxdo waxaa jiray a'immadii saalixiinta ahaa ee wanaagsanaa nin ka mida oo la odhan jiray maalik ibnu muqafal ayaa kaana yajlis fii beytihi kaiira in badan buu gurigiisa fadhihi jiray kolkaasay yidhaahdeen miyaanad cidloonayn carruurtii lama noolid xaaskii lama noolid saaxiibbadii suuqii waad iskaga tagto gurigaad u badantay markaa waxa uu ku jawaabay kelmad cajiib ahoo waxa uu leeyahay aw yastawxishu maca allaahi axad oo qofka ilaahay la fadhiyaa miyuu cidloodaa qofka ilaahay la fadhiya weheshanaya la faqaya ee baryaya ee la kalaamaya miyuu cidloodaa buuhi ma cidloodo waxa uu isaguna lahaa xabiib abu muxamed oo in badan isaguna khalaawada badin jiray man lam taqara caynuhu bika falaa qarat caynuh waman lam yanas bika falaa anis ilaahay qofka ishiisu aanay adiga kugu qabowsan wehelkaaga ama adiga aan ku weheshanin ishiisuna yaanay qabowsanin wehelna aanu helin wacaalamaynaan gaadhinba in yar haddaad meel fadhido waxaad dareemaysaa inaad xabsi ku jirto ama aada masaajidka yaro fadhido kii lala qayilayo iyo kii lala sheekaysanaya iyo kii lala haasaawaya gaadhsii baa ka dhacaysa iyo kelibaa meesha igu dishay arrimahaasoo dhan waxay tilmaamayaan runtii inaynaan dareemin macnaha ah inuu addoonku ilaahay wakhti siiyo subxaanahu wa tacaala waxyaabaha aynu ku heli karno cibaadada waxaa ka mid a albucdu can ilmacaasi inaynu caasinimada iska dayno caasinimadu waa ilaahay oo lagu gacan saydho oo aan loo heelanaanin oo aan amarkiisa la qaadanin ama aad ka warwareegto markaa qofkii waa caasi hadduu qofku caasi noqdana cudur baa haya hadduu qofka cudurku hayana cunadu uma dhadhanto kana marka uu caasi noqdo cibaadadu uma dhadhanto waa saas oo kale marka arrintaasina aad bay muhiim u tahay yaynaan fudaysanin wixii macsiyaha ilaahay lagaga fogaanayo yaxya bnu mucaad isagoo tusaalaha bixinaya waxa uu lahaa saqamu ljasadi bilawjaac jidhku cudurkuu la bukoodaa wasaqamu lquluubi bidunuub qalbiguna wuxuu la bukoodaa caasinimada iyo gafafka noocyada kala duwan leh fakamaa laa yajidu ljasadu ladata طacaami cinda saqamihi fakadalika alqalb sida had iyo jeer jidhku uu cunada u dhadhamin waaye carabka ugu macaanaan weyda cunadu markuu qofku boko qalbiguna waa saas oo kale hadduu bukoodo waxyaabaha inaga caawinaya waxaa ka mida inaynu cibaadada macaansano altaqalulu min almubaaxaat waxaan inoo xalaasha ah inaynaan ku dhexdhicinaynaan badsanin ee aynu soo koobno waa hurdadii iyo hadalkii iyo shaqadii iyo cunadii waxyaabahaas oo dhan haddaynu ilaahay baa ku xalaaleeyay laakiin ha badsanin oo aada xadda ha ka saarin أحمد بن حرب عابد كاسوحة ولها عبدت الله 50 سنة فما وجدت حلاوة العبادة حتى تركت 3 أشياء كنت السنان إلهي عابدها معاك عبادة ما ندري من صدح الريموت شيران اسكد عيب تركت رضا الناس حتى قدرت أتكلم بالحق إن أندتك الرالي قال يوان اسكد عيب مركاسا وحان أول إن الحق كل واقع كرا وإلهي والرالي قالين كراه رضي الله عنهم ورضوا عنه قرآن كوحي نوشة قدد إلهي ورهالي قليا يقول إلهي رهالي كنوضا لكن دادك لما رهالي قلين كرو رضا الناس غاية لا تدرك حكمة الله وحكم إذا إن بني آدم كرهالي قليسو وميلان لقاري كريم با رقي تشابية وحكم إذا صحابي معاوية مدحوينها مدد ديرها مسلمين توها وحوردت كورنا وحن اسكو دينا رهالي قليا إلا الحاسد فإنه لا يرضيه عني إلا زوال نعمتي عني xaasidku aniga igama raali noqonayo ilaa aan waayo wuxuu igu xaasidayo dee waaba qof adiga ku baadi doonayaba inaad meesha ka baxdo la waayo marka dadka haddaad istilaa raali geli iniba inbay kuu sii dhiibaysaa ilaahay baa kugu cadhonaya subxaana wa tacala taa waan iska yareeyey buui waxa labaad oo iyadana aan yaraystay buu leeyahay isagoo inoo tilmaamaya xikmaddaas laga soo warinaya axmed ibn xarb inaan la saaxiibo dadka faasiqiinta ah dadka wanaagsan baan la saaxiibi jiray markaa cibaadadii way ii dhadhantay oo iyagaan ku dayday buuri
waxa kaloo aan yaraystay adduunyada iyo dhex cararkeeda iyo isku mashquulinteeda aakhira ay dhadhantay buu in loo fikiro qur-aanka kariimka waxa uu leeyahay macaansi macnaha waxa cibaadooyinka noocyadeeda kala duwan nusuusta waxay noo tilmaamaysaa iyo taariikhda dadka saalixiinta in la macaansado qur-aanka waa la macaansadaa cuthmaan ibnu cafaan wuxuu leeyahay haddii qalbigeenu nadiif ahaan lahaa qur-aanka kamaynaan dheragnayn qur-aanka kamaynaan dheragnayn nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamayaa ana liliimaani xalaawa saddex arrimood qofka sameeya macaanka iimaanku helay buu nebigu iimaanku inuu macaan leeyahay buu sheegaya salaada ayuu leeyahay waxa ku raaxaysta naftayda ku raaxaysan xubbiba ilaya min dunyaakum atiibu wannisaa wajucilat quratu cayni fi salaa adduunyada haystaan laba baan anigu jecelay waxa udgoon iyo xaasaskayga oo ilaahay ii xalaaleeyay cibaadadana waxay ku qabowsataa naftaydu ku nasataa salaada waa salaada aad aragtay siday nagu tahay waxa la macaansadaa qiyaamu leylka oo dadkii saalixiinta oo wanaagsanaa waxay odhan jireen habeenkana waanu ku faraxnaa markuu soo galo maalintana waanu ka naxnaa waayo habeenka dhadhankii baa noo bilaabmaya cibaadada maalintiina buuqii iyo adduunyada balaayadeedii baa bilaabmaya waxa la macaansadaa infaaqa wax waliba barashay leeyihin bakhaylnimadana waa la bartaa bixintana waa la bartaa markaa qofku hadduu wado marka dambe inuu bixin waayo abaaba culays iyo cidhiidhi ku noqonaysa waxaa la macaansadaa cilmiga sharciga barashadiisa waa dhallinyaradii doorkay qaadanayaan caajisnimadana waa la bartaa inaad meelahan iska fadhido cilmiga daalacashadiisa iyo qoristiisa iyo faafintiisana waa la bartaa waa la macaansadaa siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ku tilmaamay manhuumaani laa yashbacaani aalibu cilmin wa aalibu dunya laba mamana ma haraadani ma dhergaan qof adduunyo doonaya iyo qof cilmi doonaya waa qofku cilmigu u dhadhamayo waxyaabaha inoo diidaya waxaa ka mid a cibaadada macaankeeda inaynu dhadhamino saa aynu horeba usoo sheegnay caasinimada waxay noo diidaya allaha inaga badbaadiye munaafiqnimada oo qofka haddii istusnima ay gashay iyo ismaqashiin dadkunbuu eegayaa ilaaha eegi maayo hadduu dadka eegana arrinkii ka dhimay oo ilaahay ishiisa aanu iska eegin subxaana wa tacaala marka daacadnimadaynu ku dhowaanaynaa nafteennaynu baraynaa inay cibaadada marka ay gudanayso cibaadada aynu daacad ka dhigno oo ilaahaynu iska dhisno subxaana wa tacaala oo inaan cid kale eeganin waxaa cibaadada dhadhankeeda inaga yarayn karaa kahratu mukhaalatati nnaas dadka in lala noolaado in badan oo la badsado oo lama doonayo dadka in laga dhex baxo waana la kala faa'iidaysanaya waana loo faa'iideynaya lamana doonayo in lagu milmo oo ay ku wada macaansadaan ay kuwa muudsadaan ubadkaaga ehelkaaga ummadda oo lagu waayaba wakhtigii cibaadada iyo wakhtigii ilaahay subxaana wa tacaala ay kaa qaadaan marka arrimaha waa la dhexdhexaysanaya dadku wakhti bay leeyihin ilaahayna wakhti buu leeyahy subxaana wa tacaala marka haddaad iyaga un ku warwareegto oo aada weydaaran weydo wixii ilaahay uu xaq kugu lahaa baa yaraanaya waxaa afraad oo dhadhanka cibaadada inaga luminaya taxawulu alcibaadaati ilaa caadaat inay cibaadadii caado u egaato waa ka ilaalinaynaa la dhaqankana dadku iyo waxyaabaha kuu gaaree cibaadooyinka iyo cibaadadu ha kala duwanaato saacaddaad guriga joogto saacaddaad suuqa joogto saacaddaad bakhaarka joogto waa inay ka duwanaataa saacaddaad ilaahay caabudaysa subxaana wa tacaala ama masaajidka ku caabud ama meel kaleba ku caabudo oo aad jawi gaara isu diyaarisa inaad gelayso laakiin haddaad hamigaagii xambaarsantahay oo mobaylkaagii xambaarsan tahay oo fikirkaagii iyo saaxiibadaadii iyo buuqoodii xambaarsantahay oo adigoo hamaansanaya intood masjidkii soo gasho adoo hamaansanaya aad ka baxayso waxay ka mid tahay un hawshii rotiiniga ahayd ama wareeggii aad ku jirtay maalintii ayuuba masjidka iyo cibaadadiina ay ka mid noqonaysa marka maad gelin jawi kale oo ka duwan kaagii caadiga ahaa idan markaa saacadaynu ilaahay siinay inaynu caabudayno waynu isu diyaarinaa bal inaynu isyar bedelno oo aynu iska furfurno xadhkihii adduunyada iyo hamigeedii iyo buuqeedii si aynu ilaahay si dhaba isugu hortaagno subxaana wa tacaala oo qiiro iyo jibbe iyo jacayl uu inoo geli karo allahuma aqsim lana min khashyatika ma taxulu bihi baynana wa bayna macaasiik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا
ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا واجعل الجنة هي دارنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم عافنا واعف عنا وارحمنا وتب علينا يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة